xeer ilaaliyaha Soomaaliya oo xeer ilaaliye cusub u magacaabay dilalka wariyaasha loo geysto Mareykanka oo shaaciyay aqoonsiga sarkaal al-shabaab ka tirsan oo lagu dilay duqeyn qarax lagu eegtay madaxweyne ku-xigeenka Afghanistan oo ka dhacay Kabul Grigo shuruudo hordhigay wada hadalada ay la yeelanayaan dalka Turkiga tijaabada talaalka COVID-19 oo la hakiyay kadib markii qof lagu muday uu ku xanuunsaday qodobadaas iyo qodobo kale oo caalamiyeed ku maqal doontaan haddii ay baraali ka noqdaan igu absima shiibinay la socodon doona ku soo dhawaada warkii oo dhan xiriiryaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa magacaabay xiraaliye gaar ah oo baadhis lagu sameeyay samarkaana u xil saaran sidii uu baadhis ugu sameyn lahaa gacantana loogu soo dhigi lahaa kuwii soo abaabulay qorsheeyayna fuliyayna dilalka waxyeelada ka dhanka ah suxufiyiinta Soomaaliyeed xafiiska xiraaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya waxa uu ku wargeliyay dadweynaha Soomaaliyeed in qof kasta oo haya xog la xiriirta dilalka loo geysto wariyaasha Soomaaliyeed ay ku soo hagaajiyaan xafiiskiisa xiraaliyaha guud ee qaranka xafiiska xiraaliyaha guud ee qaranka wuxuu xaqiijiyay si degdeg ah loo dhowri doono tallaabooyinka iyo hanaanka cadeymo iyo marag furka la xiriiran kiisaska dilalka iyo waxyeelooyinka loo geysto suxufiyiinta Soomaaliyeed iminka ayuu soo jeestay dawladdu suxufiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed waxa uu xiraaliyaha guud ee qaranku u xaqiijiyay sida uu warfaafinta ku sheegay in cadaaladda la horkeeni doono kuwii ka dambeeyay dilalka iyo waxyeeladana ka dhanka ah suxufiyiinta si loo soo afjaro dilalka iyo dhibaatooyinka ciqaab la'aanta ee loo geysto suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku shaqeeya duruufaha kala adag ayuu yiri xiraaliyaha oo markaasi ka hadlayay arrintaas arrintan ayaa soo baxaysa iyadoo dhawaan ay markaasi dhaqan gashay sharciga cusub ee saxaafadda oo ay kumanaan suxufiyiin ah ilaa iyo iminka u afduuban yihiin isla markaana ay ka biyadiisan yihiin sharcigan cusub oo ay ku tilmaameen qodobada ku jira inuu yahay min caqabad u keenaya dhammaan suxufiyiinta ka howlgala dalka Soomaaliya waxaana ay ku doodayaan in waxa laga bedelo shuruucda qaarkood oo aysan gobi ahaantood baraali ka ahayn saraakiil ka tirsan Mareykanka ayaa Afrika ayaa shaaciyay aqoonsiga hogaamiyaha sare ee ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay duqeyn 25 Agoosto ay ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya hogaamiyaha al-shabaab oo lagu dilay lagu magacaabo Abdulqaadir Commandos ayaa lagula beegsay duqeyn ka dhacday agagaarka Saako sida warbixintan ay ku sheegeen saraakiisha Mareykanku sarkaalkan ayaa xilal badan ka qabtay ayay sheegeen ururka al-shabaab hawlgallada duqeymadu waxay muhiim u tahay hoos u dhigista awoodda ay leeyihiin rabshadaha ka socda Soomaaliya meel ka baxsan ayuu yiri General Stephen Townsend oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika isagoo sheegay inay sii wadayaan cadaadiska ay shabaab ku hayaan isla markaana duqeymaha ay sii laba jibaarayaan tan iyo bishii Janaayo taliska Mareykanka ee Afrika wuxuu qabtay 46 weerar oo cirka ah si loo yareeyo shabakada al-shabaab oo iyadu ruux ahaantii halis ku ah amniga dalka Soomaaliya sida wararku sheegayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka Afghanistan Amrullah Saleh ayaa dhaawac fudud ka soo gaaray qarax lala eegtay kulayo gaadiida oo la socday magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi xilli ay marayeen goob saraakiisha ammaanka ayaa sheegay qaraxan ay ku dhinteen 6 qof halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen madaxweyne ku-xigeenka ayaa la sheegay inuu xafiiskiisa ku sii socday markaasi isla markaana lala eegtay qaraxa subaxnimadii Saaka waxaa la arkayay Amrullah oo gacanta bidix ay faashad kaga xidhan tahay balse dhaawiciisa ayaa la sheegay inuu aad u fudud yahay isla markaana lagu daaweynayo cusbitaal ku yaala wadankaasi halkaasi toosan nagula socotaan waa Somali News podcast iyo waliba xaqiiqdoon TV وزارة غريغا كيارو مستعب ayaa laba warqadood oo isku mid ah u diray golaha ammaanka qaramada midoobay iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay si ay wax looga qabto dhibaatada uu sheegay in Turkigu ka wado bariga Mediterranean-ka xilli dhawaan Ankara ay ku dhawaaqday in Athens ay diiday kala isla markaana kala xaajoodka xiisadda badda Mediterranean-ka isla markaana aysan ka jawaabin dalaba la xiriira wada hadallo ku saabsan biyaha Mediterranean-ka ay isku hayaan labada dhinac Turkiga ayaa dhawaan waxa ay ka sameeyeen dowlatus aad u weyn ka soo gilgilay dhammaan wadanka Greega oo ay cabsi weyn ay soo wajahday
ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu caddeeyey in wadaxaajoodka ugu horeeya in la xaajoonayo waxa uu ku tilmaamay ficilada daandaansiga ee uu wado turkigu ka wado biyaha materiinka iyo weliba dhoolotuska uu doonayo iminka inuu ku kala bixiyo meelo badan oo ay isku hayaan. wuxuu intuu raaciyey in wadankiisa uu weli ku adkaysanayo in khilaafkaasi si nabada lagu xaliyo isla markaana dhankooda ay diyaar yihiin in uu dib u bilowdo wadahadaladii uu la lahaa turkiga laga bilaabo bishii markii uu istaagay bishii maasho 2016 wadahadaladaas. sidoo kale wuxuu sheegay Mr. Kyriakos in ugu horeyn turkigu uu joojiyo dhaqdhaqaaqa kasta oo sharci darro ku saabsan bariga badda Mediterranean lagana fogaado hadallada xanafta iyo ficilada daandaansiga ee hortaagan wadahadalada inay joojiyaan dhoolotuska aan macdada lahayn ee ay ka wadaan meelahaasi diyaaraduhu. ra-iisul wasaaraha Giriga wuxuu caddeeyey labadiisa fariin ee uu diray in turkigu uu ku dhaqmayo ficilo daandaansi ah tan iyo bishii Luulyo ee la soo dhaafay isagoo oo carabka ku adkeeyay arrintan khatar aan hore loo arag ay ku hayso madax bannaanida Giriga sidoo kale nabadda iyo xasiloonida guud ahaan gobolka. dhanka kale turkiga ayaa ku dhawaaqay in Giriga uu diiday inuu kala xaajoodo arrimaha badda Mediterranean. wasiirka arrimaha dibadda turkiga ayaa sheegay in dalkiisa ugu horeyn uu muujiyay in uu diyaar u yahay wadahadalo laakiin Giriga aanu ka jawaabin baaqaasi samarkaana ay waxay ka suurowdo ay sameeyaan. geeska kale wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay isaguna in dalkiisa uu diyaar u yahay fududeynta taabagelinta wadahadalada dhexmara Giriga iyo turkiga si loo raadiyo xal waafaqsan sharciga caalamiga oo midna uusan ku doondaansan ka kale. markii horeysay ururka isbahaysiga ee waqooyiga Atlantic NATO ay ku wada jiraan turkiga iyo Giriga ayaa ku dhawaaqay inay bilaabi doonaan wadahadalo nabadeed oo u dhexeeya labada dal laakiin Athens ayaa sheegtay inaysan wadahadalo ay u hortaagaynin isla markaana aysan hortaagin iga raalihaada. waxa ay sheegtay Athens inaysan wadahadalada hortaagan tahay Ankara isla markaana aysan doonaynin in ay wadahadalada si daacad uga qayb gasho. xaaladda Giriga iyo turkiga ayaa cirka isku shareertay iyagoo biyaha badda si weyn isugu haya isla markaana cabsi weyn laga qabo haddii wadahadalada tan ay suroobi waayaan in fooda la istaro oo la isu adeegsado diyaaradaha markaasi qumaatiga u kaca. tijaabadii tallaalka cudurka saameynta weyn ku yeeshay caalamka oo idile COVID-19 ayaa la hakiyay kadib markii qof xanuunsanaya lagu muday qof kiina uu ku xanuunsaday. waxaa la hakiyay tijaabada lagu waday daawada tallaalka ugu horeysa ee lagula dagaalamayo cudurka COVID-19 kadib markii uu xanuunsaday qof ka mid ah kumanaanka qof ee lagu tijaabiyey daawadatan. shirkadda AstraZeneca oo daawada samaysay ayaa bishii la soo dhaafay waday diyaarinta tallaalka ugu horeeyay ee looga hortagayo coronaviruska iyadoo oo kaashanaysay jaamacadda Oxford. waana tallaalkii ugu biimsanaa ee isha lagu hayo oo maraya heerkii ugu dambeeyay. cudurka COVID-19 oo aan ilaa iyo hadda loo haynin daawo oo tallaal looga hortago ayaa waxaa dadaal weyn loogu jiraa sidii loo heli lahaa daawada tallaalka ay wadaan jaamacadaha iyo shirkadaha ugu waaweyn dunida ee soo saara daawooyinka ilaa iyo iminkana si rasmi ah looma soo saarin balse tijaabooyinkii ugu dambeeyay ayaa lagu jira. daawadan tallaalka ee AstraZeneca ayaa midda loogu rajada weeyay waxaana daawadan soo martay tijaabooyin badan. hadda waxa ay maraysaa tijaabadii ugu dambeysay ee lagu tijaabinayo kumanaan qof oo loo soo xulay. hase yeeshee tijaabadan ayaa hakisay kadib markii uu xanuunsaday qof ka mid ah dadkii lagu tijaabiyey daawadata. hakinta tijaabadan ayaa ka mid ah nidaamka lagu xaqiijinayo xanuunkan markaasi qabay qofkaasi inaysan la xidhiidhin daawada tijaabada ah ama ay arrimo kale la xidhiidho. waxaa faahfaahin laga bixin doonaa qofka jirada xanuunka haya iyo heerka uu gaarsiisan yahay. shirkadda AstraZeneca ayaa ka mid ah 9 shirkadood ee daawada soo saaraysa hadda heerkii ugu dambeeyay baray tijaabadii daawada tallaalka COVID-19. shirkadan oo 31 bishii August bilowday ayaa diiwaan gelisay dad gaaraya 30,000 oo qof oo ku sugan dalka Mareykanka kuwaasoo diyaar u ah in daawadan lagu tijaabiyo. tijaabadan oo ah tallaabadii ugu dambeysay ka hor inta aan daawada isticmaalkeeda si rasmi ah loo fasixin. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo dhegeysiga qaaliga waqtigaad noo hurteen. anigoo cabsime shibina la socodsiinayay intaan dib u kulmi doono fadlan ha ilaawin waxaan idinkaga tegaynaa amaan Allah.